waa gabar saaxiibteeda ayaa waxay u ballan qaaday in 2 maalin ka soonto 8 bari kalena ayada waxay rabtaa inay soonto marka waxay leedahay walaashii oo dhimatay tobankaas bari haddii aan ka soonno aniga iyo saaxiibteeba soonka 15 bari ahaa ee lagu lahaa ma loo cafinaya طيب saladan gabadhu waxay sheegtay 15 bari oo qof laga soomayo 10 la soomay shantii kalena iyada iyo gabadh kale inay qaybsadaan ay doonayaan nabiga calaysalaam salaam waa sheegay qof dhintay in laga soomi karo man maata alayhi siyaamun saama anhu waliyuhu xadiidku Aisha radiyallahu anha warḍaha laakiin lafdiga xadiidku isticmaalay nabigeenu waliyuhu way gabadha dhimatay ciyaalka carruurteeda wali waxaan soomka qof laga soomayana waa baabka wakaala iyo niyaabada way qofku haddaba kale ka soomaya idan buu u baahan yahay in carruurtii ay gabadhu dhashay idan iyo ogolaansho in cid kale ka soonta laga soo helo ama walaasheed ha noqoto ama qof kale ha noqdaan sababtoo qof markaad wakiil ka noqonayso ama isaga inuu ku ogolaado ama qofkii wilaayada meeshan lahaa isagu idan iyo ogolaanshaad ka heshaad u baahantahay saa darteed waxaan leenahay warka murtidiisu haddii carruurta dhashay ogolaansho laga helo tii hore iyo ta dambaba waad ka soomi kartaa billahi tawfiiq